And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he is getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. And I made myself emotionally so strong. Naftaydan dareen ahaan waxaan ka dhigay mid xoogan that the day I got the news that he's getting married. Maalintii aan helay akhbaarta inuu guursanayo, I sent him a text. Waxaan u diray message that I'm so happy for you and I wish all the best. Message-kana wuxuu ahaa, aad ayaan kuugu faraxsanahay. Waxaan kuu rajaynayaa wax walba wixii ugu wanaagsanaa. And he knows that I pray for him today. Wuuna og yahay inaan u duceeyo maanta. Pray for markii dadka loo isticmaalayo waxay noqonaysaa duco. Markii Ilaahay laga hadlaana waxay noqonaysaa salaad. Waxaa commentiga ku soo qortaa asxaabta khaaliga ii soo duceey kadib haddii dhib ku haysto kaleeta dhibkaas ku dar. Kuna soo qor luqadda Ingiriiska. My biggest fear, number 2, was I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. Hey guys, kusoo dhawaada channelka English Speaker iyo video cusub. Dadka ku cusubta inuu soo biir channelka subscribe dheh, video like rey. Una shargada asxaabtaada jecel inay bartaan luqadda Ingiriiska. Anyways, introga ku dheeraan aan bilaawno videogeena. And I cried. And I said, what am I doing? A person on a wheelchair should not do this. What will people say? And I cried and I said, what am I doing? Waan ooyay waxaana dhahay maxaan sameynayaa? A person on a wheelchair should not do this. Qof kursiga curyaaminta ku fadhiya maahan inuu waxaan sameeyo. What will people say? Dadku maxay dhihi doonaan? Clean it up. Put it again. This time I put it for myself. Because I wanted to feel perfect from within. Clean it up. Waan tirtiray. Put it again. Mar kalaan marsaday. This time I put it for myself. Markaan nafteedan u marsaday. Because I wanted to feel perfect from within. Maxaa yeelay anaa raba gudahayga inaan ka dareemo perfect. From within waxaa waaye gudaha. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown. Fear of known. Fear of losing people. Fear of losing help. Money. That day I decided that I'm going to fight my fears. Maalintaas waxaan go'aansaday inaan la dagaalamo cabsiyahayga. We all have fears. Dhammaanteen waxaan leenahay cabsiyo. Yani waxyaabaan ka cabsano. Fear of unknown. Cabsida laga cabsanaya waxaan la aqaanin. Fear of known. Cabsida laga cabsanaya wax la yaqaano. Fear of losing people. Cabsida laga cabsanaya in dad la waayo. Fear of losing health, money. Cabsida laga cabsanaya in la waayo caafimaad ama lacag. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears. And I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. We are scared all the time. Mar walba waan baqaynaa. So I wrote down one by one all those fears. Waxaan mid u qoray cabsiyahaasoo dhan. One by one, mid. And I decided that I'm going to overcome these fears. Waxaana go'aansaday inaan ka guulaysan doono cabsiyadahan. One at a time. Halkii marba mid inaan ka guulaysto. One at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. You know what was my biggest fear? Ma ogtaa waxa uu ahaa cabsideedii ugu weyneed? Divorce. Furitaan. I couldn't stand this word. Uma adkaysan karin kelmadan. I couldn't stand this word. I was trying to cling on to this person who didn't want me anymore, but I said no. I have to make it work. I was trying to cling on to this person. Waxaan isku dayay inaan isku dhajiyo qofkan. Cling on, isku dhajin, who didn't want me anymore. Kaasoo aanan i rabinba. But I said no, I have to make it work. Laakiin waxaa dhahay maya waa inaan ka shaqaysiiyaa. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. But the day I decided that this is nothing but my fear, laakiin maalintii aan go'aansaday inay tan waxba ahayn inay cabsi keliya tahay, I liberated myself by setting him free. Waxaan xoreeyay nafteyda anigoo asiga fasaxayo. Liberate, xoreyn, set free waxaa waaye in wax la fasaxo. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he is getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. And I made myself emotionally so strong. Naftaydan dareen ahaan waxaan ka dhigay mid xoogan that the day I got
the news that he's getting married. Maalintii aan helay akhbaarta inuu guursanayo, I sent him a text. Waxaan u diray message that I'm so happy for you and I wish all the best. Message-kana wuxuu ahaa, aad ayaan kuugu faraxsanahay. Waxaan ku rajeynayaa wax walba wixii ugu wanaagsanaa. And he knows that I pray for him today. Wuuna og yahay inaan u duceeyo maanta. Pray for markii dadka loo isticmaalayo waxay noqonaysaa duco, markii Ilaahay laga hadlayna waxay noqonaysaa salaad. Waxaa comment-iga ku soo qortaa asxaabta khaaliga ii soo duceey kadib haddii dhib ku haysto kaleeto dhibkaas ku dar kuna soo qor luqadda Englishka. My biggest fear, number 2, was I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. My biggest fear, number 2, was cabsideyda labaadii ugu weyneedna waxay ahayd I won't be able to be a mother again. Mar dambe inaan hooyo noqon doonin. And that was quite devastating for me. Taasina waxay ii ahayd murugo. Devastate marna murugo lagu fasiri karaa, marna waxaa lagu fasiri karaa burburid. Waxayna ku xiran tahay qaabka jumlada ugu jirta markaas. Videogan maanta meeshaas ayuu ku egyahay. Haddaad ku cusubtahay nagu soo biirtina ka subscribe dheh, video like rey, una shargada asxaabtaada jeclayna bartaan luqadda Englishka. Haddii ay jiraan waxyaabo kale oo aad jeceshahay inaan ka hadlan iyo wareeb qaybta commentiga. And as always, that's it for today. See you in my next video. Bye!